xaflad si heersare loo soo agaasimay ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho waxaana hay'adda Hormuud Salaama Foundation ay daafurtay shirkadda lisa oksijiinka. Shirkaddan oksijiinka ayaa ahayd mid baahi weyn loogu qabay caasimadda iyadoona isbitaalada badankooda dadka qaba cudurka coronavirus u laayeen mishiin neefta siiya. Xafladda ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaama Foundation. mar aad iyo aad u xanuun badan waxaa dhacday in oxygen la'aan ay la soo gudboonaato isbitaal Banaadir waxaan sameynay gurmadkii ugu horreeyay oxygen-ka ilaa iyo 2500 oo cylinders ama xaamood oxygen ah ayaan isbitaalka aan ugu daaqnay ilaa iyo oxygen-ta ay xaalad ay degto. sidoo kale waxaan oxygen 400 oo xaamood ka soo iibinay dalka Imaaraadka Carabta oo ayadan aan keenay ayadoo cabaysan oo xanuun ku jirto oo inteeda badan loo gudbiyay markaas xanuunka aad u xooganaa dowladka Galmudug. dhanka kale intii lagu jiray xanuunka coronavirus markuu bilowday waxaan ambulance cusub ugu daaqnay oo aan ku wareejinay isbitaalka magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose si mataqaana arrinta ay gurmadka qayb ka noqoto. oxygen-ta aan markii uu second wave-ka labaad u bilowday aan soo iibinay waxaa kaloo ayadana laga fikiray sidii oxygen joogto ah loo heli lahaa isla markaasna waxaan ka soo iibinay warshad oxygen ah dalka Turkiga. Waxaa sidoo kale ka hadlay marti sharafta ka soo qayb gashay iyagoona inta badan ugu mahadceliyay hay'adda Hormuud inta ka soo shaqaysay inta runtii gaar ahaan shirkadda Hormuud iyo Salaam Foundation oo runtii walaalkeen Cabdullaahi jazakallahu khayran Allah barakeeyo runtii iyo dhammaan ragga Hormuud Foundation ka shaqeeya iyo shirkaddaba oo runtii tusaale u ah ayaga saaxiibadoodaba dad muslimiin oo Soomaali ah oo ganacsato ah oo maalkooda ummadooda ku anfaca. oo mahadcelinaya anoo ku hadlay magaca ummadda Soomaaliyeed roolka iyo baahida ay dabooleen ilaahayna waxaan ka rajeynayaa cudurka inuu soo noo keenin mar dambe laakiin hadda waa iska diyaar garoobina hadii la yiraahdo iyo horumarin iyo qalabayn iyo qurxin aniga maalin dhaweyd waxay waday maxaa ahayd agaasimaha Furtuun waxay ugu soo wareejisay qaybaha cusub oo la dhiso isbitaalka. runtii qofkii aan ku soo wareegin oo aan soo arkin wax badan ka dhiman ma isdii karo maaragtay laguma soo koobi karo runtii wax qabadka wixii hadii hantidii Ilaahay keeno oo loogu deeqay qofkii wax ku qabto wax ku qurxiya ayaa wuxuu mudan yahay runtii aad loogu amaal mariyo. ugu dambeyn xafladda ayaa waxaa ka hadashay wasiiradda caafimaadka iyadoo ona sheegtay baahida loo qabay oksijiinka inay meesha ka baxday. shuruudaha ay duruufaha ay idin eexdeen wallahi bari inay idin eexanay waxa fiican in la habeeyo ummadana loo naxariisto wax dan oo khaas oo shakhsi ama wasaarad aan kaleenahay ma jirto laakiin waa dhibtay isbitaaladii ummadda loo dhisay gorgortan ay ku jiraan aad iyo aad ay dhibtay ma dhici karto cadaalad ma aha cadaalad markaan ka hadlayno it's 360 degrees naxariista waxay ku jirtaa dadka isbitaaladan haay way ay u haayaan maxay isugu dhajinayaan dawladda ma ka qaadayso hay'adii joogto waa lagu maamula maxaa u diiday in lagu maamulo cadaalad miya naxariisna ma jirto marka naxariista ayaan ku soo koobin Hormuud kaliya wax bixisa dahabshiila soo wadamay ummadda hadaysan isu naxariisanin ilaahay uma naxariisana meeshan 180 iyo ka badan qof ku dhashay ilmo waxaan aragnaa Fortuna iga badiso ii sheegto waa kortay oxygen-ka saddex loogu xiraaya way saddex loogu cadaalad miya cadaalad horta markaan sheegayno from A to Z sida u jirta u sheega aniga cid aan ka baqay ma jirto waa sheega wixii ilaahay u yiri ninkii ku faraxsan ninkii aan ku faraxsaneen cadaaladda aan ka wada shaqeyno. Hormuud aan soo noqonaa marrin faastada inaan qaldo laakiin wax kelmada isoo xasuusiyo Hormuud ilaahay ha barakeeyo Cabdullaahi Ismaan iyo Axmed Sacuudi aan naga joog mudane Axmed Jimcaale salaan qaas hal iga gaarsiiyo horta waajib weyn ee ka soo baxda qofka marka dib ku jirtid ku gurmado waliga ma hilmaamaysid Cabdullaahi habeen imaalno nala taagnaa balse asaa iga walwal badnaa oo specification intee waa keen dawladda Turkiga iyo safiirkan runtii aad ay noogu gargaaray kuwii dawladda ay dirtay oo isla mar la diray wali ma imaanin waxa yiraahdo waa soo noqon
dadkii muxsiniinta oo badbaadi naf Sheekh Bashiir uu hogaaminaya iyaga naftirkooda howlay ku jiro. Si kastaba ha ahaatee cudurka coronavirus ayaa saameyn togan ku yeeshay gobollada dalka iyo degmooyinka iyadoona dhibaatooyin badan oo u geystay dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Mustafa Maxamuud Xasan, Mustafa Faransa, Idil Television, magaalada Muqdisho.